Soomaaliya waxay cagta saartay wadadii horumarka. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u howlgashay dib u dhiska, tayeynta iyo tirakoobka ciidanka xoogga dalka. Hawshaas waxaa door muuqda ka qaadatay Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa taliska ciidanka xoogga dalka. waa markii uu xilka la wareegayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Maxamed waxa uu si anba qaaday howlaha loo igmaday ee ah difaaca iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. iyadoo laga duulayo in la helo ciidamo tayeysan leh cudud ciidan oo dhan walba ka diyaarsan ayay wasaaradda gaashaandhigga qorshaysay in tababarka iyo ka qaybgalka ciidanka fursad loo siiyo dhalinyarada waxbaratay si dib u dhiska ciidanka kaalin muuqata ay uga qaataan. markiiba waxaa ciidanka ku soo biiray dhalinyaro waxbaratay. taas waxay sahashay in la helo tiro bilow fiican ah oo dhalinyaro aqoon iyo khibrad ciidan leh in laga helo hoggaanada kala duwan ee ciidamada gaar ahaan ciidanka xoogga dalka. tababarna waxaa loogu diray dalal kala duwan. dadaaladaas waxaa barbar socday diiwaangelinta iyo tirakoobka ciidanka, waxaana koox ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliska xoogga dalka wasiirka gaashaandhigga uu u xil saaray diiwaangelinta iyo tirakoobka ciidanka. arrintaas waxay qayb ka tahay guulaha muuqda ee wasaaradda gaashaandhigga gaartay. waxaana suurto gashay in la helo ciidan tiro kooban oo si joogto ah u helo xuquuqdooda. runtii aad baan kulligiin idinku hambalyanaya. anigu runtii waxaan ogaaday in ciidamadu aysan fayl lahayn markii aan tegay wasaaradda gaashaandhigga. markii aan iri taliyaashii ciidanka hogaaminaya feelashin ii keena aysan feelo lahayn, waan iri askarta ka shaqeysa xafiiska personaalka ama xafiiska ciidanka taliyahii joogay feelkaaga ii keen uusan feel lahayn, yaa waxay caddaatay in loo baahan yahay dib u habeyntan iyo reformkan oo degdeg in loo sameeyo. dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa u howlgashay dib u dhiska xarumihii ciidanka xoogga dalka, waxaana dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyay xarumo waaweyn oo ku yaala gobollada dalka iyo Muqdisho. waxaana loo diyaariyay goobo kala duwan kumanaanka askari ee ku soo biiraya ciidanka xoogga. ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa uga mahad celiyay wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka xoogga doorka muuqda ay ka qaateen dib u dhiska ciidanka. ciidanku waa astaanta qaranka Soomaaliyeed. ciidanku waa sharafta dawladnimada. ciidanku waa ilaaladii xuduudaha cir, dhul iyo bad ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed. ciidanku waa rajada kaliya ay ummadda Soomaaliyeed leedahay. dad iyo dalaan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dalaan dhul lahayn. kadib diyaarintii cudud ciidan oo qarankan uu ku faani karo, waxaa bilowday xoreynta deegaano hor leh oo sanado badan ay gacanta ku hayeen cadowga, waxaana ay ciidanka xoogga dalka la wareegeen deegaanadaas. hambalyaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaasoo sano soo dhibaayay, inaad ka adkaateen oo aad kaga guulaysateen oo idin babac dhigi waayeen oo ay iska kiin maxaan ku difaaci waayeen. markaad meeshaan timaadeen waa carareen soo maaha, waa dhaqankay leeyihiin. marka waxaa loo baahan yahay sidii aad magaaladan uga erideen
sabiid iyo caanool aad uga erideen oo aad uga adkaateen inaad u difaacataan magaaladan shacabka magaaladan degan oo muddo dheer ay gumaysi ku hayeenna aad ka difaacdaan. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa u howlgashay sidii ay dib ugu soo celin lahayd xiriirkii dhinaca gaashaandhigga ee waddamada caalamka iyo maqaamkii Soomaaliya ay ku dhex lahayd. 30 sano kadib dowladda Mareykanka ayaa ku ammaantay Soomaaliya hannaanka maamul maaliyadeed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyadoo laga duulayo dib u habeynta hannaanka maaliyadeed ee ciidanka xoogga dalka ayuu madaxweyne Farmaajo amray in la kordhiyo miisaaniyadda ciidanka xoogga si mushaarka ciidanka sare loogu qaado iyagana ay u gutaan waajibka ka saaran dalka iyo dadka Soomaaliyeed. waxaana xusid mudan in markii ugu horeysay ciidanka xoogga dalka ay yeesheen goobo caafimaad oo u gaar ah oo si casri ah loo qalabeeyay. arrinkan waxa ay qayb ka tahay guulaha waaweyn ee xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre ay gaartay. wasaaradda gaashaandhigga ayaana gundhig u ahayd. waase guulo waaweyn oo la mahdiyay in Soomaaliya xilligan ay haysato ciidamo tirsan, tayaysan, leh xarumo ay degan yihiin iyo xorriyad si casri ah u dhisan. si joogto ahna waxay u heleen ciidanka xuquuqdooda. siyaasadda madaxweyne Farmaajo waxaa ka mid ah in ciidamadeenna sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo ceshadaan sharaftii iyo ay ku lahaayeen, iyadoo dhismaha isbitaalka uu muhiim u yahay ciidamadeenna waana midda keentay in madaxweynaha dhowaan yimaado halka uuna ku deeqo qalab caafimaad qaliinka qaybihiisa kala duwan. dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay ku dadaali doontaa sida ugu dhaqsiyaha badan isbitaalka loogu helo dhammaan aqabiyadii ee u harsan ama ka dhiman insha Allah.